mudane gudoomiye waxaan marka hore rabaa inaan u mahadceliyo tiimkii ka soo shaqeeyay iyo wasaaradda sharcigan oo noola keenay xeerkii lagu dhisi lahaa hay'adda adeega baaritaanka ee sharciyaha beeraha Soomaaliyeed magacii ratabaha loo bixiyo waqtiga uu rabo ha yimaadee waa mid muhiim u ah dalkeena wax soo saarka dalkeena beeraheena iyo dadka beeraleyda ee beeraha ku aftirsada mudane gudoomiye waxaan rabaa marka hore in bal wasiirka aan weydiino hay'addan la dhisay markii hay'ad la sameeyay waxay la socotaa in la helo budgetkii lagu dhisi lahaa ama dhaqaalihii lagu dhisi lahaa ma ka muuqato mana ku jirto marka inuu inta noo imaado uu noo sheego budgetkeedii ma ku jirtaa miisaaniyadda hadda aan haynay oo ku noqoshadeeda mase miisaaniyadda 21 ka uu ugu talagalay inuu keenayo miisaaniyaddaas meesha ay ka imaanayso midda kale mudane gudoomiye markii la dhaho wasaaradda beeraha iyo waraabka wasiirku wuxuu yiri wabiga aniga dhinaca ka shaqo ku mali anaga beeraley aan nahay reewabi aan nahay wasaaradda beerahaana mas'uulka ahaan jirta wabiga oo control jirtay ima jirtay ogaa jirta meesha uu maraayo markuu uu soo gaaro 4 iyo 5 beeraleyda uga digi jirtay ilaali jirta wabiga jiinkiisa diiri jirta in la jabiyo wabiga jiinkiisa oo kali iyo wax laga sameeyo oo beeraha lagu soo jabiyo waa ognahay inaan meel dheer ka imaanay inuu dagaal sokeeyo dhacay in maaragtay dawladnimadeeni iyo wax soo saarkeeni dhan ay burbureen laakiin wasiirka sidoo hadeertaan u hadlay anoo sharaf iyo ixtiraam iyo karaamo u haayo dadkeena beeraleyda hore wabiga hadalkiisa maanta ma ku farxi doonaan mana ku qanci doonaan taas waxaan uga gol leeyahay mudane gudoomiye hadalkii hadda inta uu ka dhahay wasiirka uu yiri fatahaadii waxaa loo saaray guddi uu hogaaminayo wasiir hebel guddigaas wuxuu ahaa wasaaradda golaha wasiirada laga ansixiyay waxay ahayd dhibaatada markaas taagan inuu ka shaqeeyo waxayna ahayd ad hoc committee oo loogu talagalay xaaladda markaas taagan yahay inuu wax ka qabto wasaaraddu waxay leedahay hay'ado aad u tiro badan oo inta laga sheego aan u baahnayn in lagu noqdo ay ka mid tahay fidintii beeraha oo ka mid yahay waraabkii iyo kii ayaxa oo uu ku ooli jiray xarumihiisa 3 meelood Soomaaliya waxaan hambal leeyahay marka hore wanaagga iyo dadaalka wasaaradda ay u sameysay in la dagaalamo ayaxa laakiin 3 meelood ay ahayd waxa la qaatay at least xataa in laga kala fakaro goormee bakool ayaxi ku habsaday diyaarad ka soo duushay meel kale dalka kamid uu ka buufi doona oo ka hagaaji doona in la qaybiyay ahayd waxaan rabaa mudane gudoomiye hindi sharciyada waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh ani waa soo dhaweynaa muhiim iyo mudnaan ay loo leedahay in la ilaaliyo wax soo saarkeeni waxaan qabanay hadda ka hor guddigeena caucus-ka ee baarlamaanka inaan sameeynay oo aan soo bandhignay dad badan oo cilmi baaris sameeyay wasaaraddan ka tirsan ayna noo sheegeen in abuurkeeni uu baaba'ay maadaama sharcigan maanta la keenay ilaalinayana abuurkeeni anaga beeraley aan nahay masagada noo soo go'day intaan ka reebana abuuro jirnay sanadka dambe bakaare gashay jireen awoowayaasheen oo aan cuni jirnay waqtiyada abaartay noolamana soo gurmay jirin masagadeeni iyo galleydeenina Ireland oo Irish oo aan waliga dalkeena imaanna waxay tiri raashinkooda wuu sumaysan yahay markii aan bakaar la gelinin wasiirkani intuu istaagay wuxuu dhahay waa waxaad malaha waxa arkaysaa oo ay niyad jab ku tahay dhibaatana ay ku tahay dadkii beeraha abuuranay keedsanay in niyadii laga jibiyo la dhaho masagada aad soo goosatay bay baarade ma isticmaali kartid bilooyin kadib ee hadda wixii ku soo hara xoolahaasi mudane gudoomiye guddigeena caucus-ka waxaan ku dadaalnay wasiirkan uu noo qiray in budgetka beeraha la kordhiyo budgetka aan haysano oo dhan oo dawladdan waa wada ognahay waa wax yar wax aad iyo aad u yar waaye wax kala go'i karo kala qaybsami karana ma aha laakiin haddii mudnaanta la siiyo beeraha iyo waraabka xoolaha iyo kalluumaysiga waxaan gaari karnaa at least inaan ka maarano caano booraha noola soo dhoofinayo masagada qamadiga ee noola keenayo Latin America inay isku tashtaan waxaan kaloo bogaadinaa mudane gudoomiye oo wasiirkan inta nooga qiray anina aan hoos ka xariiqa runtii mooskeena inuu quality yeesho dadaal badan oo jihda ay geliyeen beeraleyda iyo ganacsatada Soomaaliyeed
waxaan rabaa sisint oo uu ka dhawaajiyay wasiirkeena oo asigana aan hambali ugu hay dad badan aan maalin dhaweed aragnay oo la kulanay oo guddiga dhaqaalaha ay u yeereen shir la fariisteen in sisinteena ay tahay sisinta ugu wanaagsan haddana aysan la tartami karin suuqyada adduunka aysan la tartami karin sida Hindiya ama Pakistan ka imaada maaragtay sisinteeda maadaama ay caqabado badan ay haysato laga soo gooyo beerta ilaa marka la dhoofinayo aysan haysan suuq ay toos u geystaan ku qasban yihiin wadamo kale inay maraan waxaan rabaa inuu wasiirka maanta noo sheego qorshaha uu ka leeyahay ka damacsan yahay iyo siyaasadda uga degsan sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka dalkeena ay ku qusayso ugu badan tahay liinta aan dhoofino iyo sisinta aan u mareyno wadamo kale inaan inta geyno laga bedelo magaceedii oo magacyo kale lagu dhajiyo canshuuraha la rabo in si loo dhiirigeliyo beeralayda iyo ganacsatada in laga dhimo ay tahay oo hadhow haddii ay lacag xataa waxa culus ay ku soo gelin doonaan ku keeni doonaan canshuurta loo kordhiyo laakiin inta markii loorka sisinta laga qaadayo ay tahay in laga raqiisiyo lacag la siino sababtoo Hindiya waxaan ognahay in loo dhaafo halkii tan $100 la siina ay ku baxsato hadhow nin ay dawladdiisii soo kabtay ma geyn karo suuq ma dhaheena ganacsatada iyo beeralayda sisinta lacag la siiyo markay maba haysanaba waxaan haysano maba jiraan aan siino laakiin waxa laga dhimi karaa beerta ilaa inta ay ka baxayso degada sharci loo fududeeyo hawshan loo fududeeyo inay qabsanto mudane gudoomiye martida sharafta leh waxa jiro uu guddoonsiirka noo keenay sharcigan waa sheeg muhiimad u leh laakiin waxa noo yaala sharci kale oo midna kiimikada ilaalinayo midna mirihi ilaalinayo annaga beeraleeyanahay ayniga ku qorneed waxaan raadinayaa maalintii la keenay ilaa maanta ayni wuxuu yahay waxaan rabnaa shuruucda noola keenaa sharciyo Soomaaliyeysan fahmaya dadka beeralayda ku salaysan afkeena Soomaaliga saxda inuu noogu qoran yahay saddex sharci waaye juhdi la geliyay saddex sharci ani waxaan soo jeedinaa sidoo uu soo jeediyay waxaan hoos ka xariiqaa Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo ahayd in la helo sharci ballaaran ilaalinaya siyaasadda dalka waxaa joogo PhD holder ameesh fadhi oo beero ku takhasus yaqaan sharciyeedana meesha marayeen sharci cusub inaan noola soo koobiyaarin sharcigeeni beeraha aan lahayn jirna la keeno moderate laga dhigo technology si uu la saama qaado mahadsanid Cabdi Xakiin Macallin